haddana waxaan ku soo dhaweynayaa microfonka Bile Ismaaciil oo mar kasta loogu faanay inuu yahay nin reer Jubbaland ah jamac baan ku la show lahaa moosan abuuri jinuu yiraaha bilow ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalatu wassalamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam bacda salaam aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dadweynaha reer San Diego sida wanaagsan ee u soo ajibteen soo dhaweyntii gobornarka ama gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni ragga iga horeeyay ee asadii ay kamid ahaayeen ayaa warbixin dheer ka bixiyay magaalada San Diego hase waxaan ku darayaa waxyaabo yar oo ay ka tageen gudoomiyaha magaalada San Diego waa magaalada ay ku hareen dadka jilib culuska ah dadkii dhalinyarada ahaa maxaan ku raadaa soo maray ama xagga Tijuana ka yimaadeen ama xagga qaxootinimada isu soo dhiibeen waxay u gudbeen maxaan ku raadaa gobolada kale laakiin dadka ku haray waa dadkii jilib culuska ah waxay halkan ka direen oo dalka ay dib ugu celiyeen laba nin oo hadda mas'uuliyiin waaweyn mid uu mas'uul weyn ka yahay dalka Soomaaliya midna uu soo noqday oo madaxweynenimo isu sharxay nin la yiraahdo Yaasiin Ciise oo halka fadhiyo oo saaxiibadeena ayay direen dadka maaragtay reer San Diego ragga kale oo maqan ee mas'uuliyiinta ana waxaa kamid ah nin la yiraahdo maxaan ku raahdaa Baabul oo madaxweyne ku xigeen ka Jubbada muxuu ahaa Jubbaland Puntland ka ayay xagaas ayagana u direen waxaa kale oo ku sheegayaa dadkan reer San Diego inay yihiin dad had iyo jeer u taagan in ay la garab taagnaadaan taageero iyo xaq kastaba ay la garab taagnaadaan Jubbaland gaar ahaan guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed oo dhan xafladihii hore aan sameyn jirnay aad bay maaragtay tan uga badan tahay waxa la leeyahay la soo dhaweeyo haddii aan maaragtay warkayga aan maaragtay yani bal aan soo gaabiyo gudoomiyaha ee maamulka uu wakiilka ka yahay aad baan uga raalinahay maxaa yeelay muddada gaaban ee labada sano ee ay joogeen halkaas iyo waliba dadka faraha badan ee maxaan ku raahdaa ama ha ahaadeen baarlamaan ama maamul ha ahaadeen ama dawladda dhexe ha ahaadeen ee kaliya sooriska ay u hayaan ay tahay dekada yar iyo oo wali aan maaragtay xilliyada qaarkood xiranta iyo airportka yar haddana horumarka xagga infrastructure-ka ay ka muuqda aad baan raalli uga nahay jaal gudoomiye laakiin waxaa la sii qaban karaa intaa in ka badan waxaa maaragtay yani aniga gaar ahaan markaan leeyahay aniga reer Jubbaland ama tagin waxyaabaha xoogaa dib ii dhigay waxaa kamid ah jaal gudoomiye 25 sano ayaan dalka ka maqnaa 25 sano aan ka maqnaa dalka waxaan jeclaan lahaa haddii aan Jubbaland tago inaan dhammaan degmooyinka Jubbaland aan tago oo degmada Jilib tago oo Tajamaama tago oo Bu'aala tago oo ilaa iyo maxaan ku raahdaa Garbahari tago oo Bu'aala Afmadow tago oo Xagar tago oo Badhaadha aan tagaan jeclaan lahaa hase ahaatee maanta yani inkastoo la dadaalay meesha la jooga waa Kismaayo oo kaliya ayaa la jooga horumarkii la sameyn lahaa Kismaayo dhulkii beeraha waa maqan yahay dhulkii xoolaha umba hadda maartay inta badan waxa ay ka sameeysan yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa oo soo jeedin iga ah koow oo anaga gaarsinaysa maamulka ee Jubbaland naga gaarsinaysa fariin ah in aan u istaagno sidii aan u xoreyn lahayn waa xoreyn karaay ee gobolkeena Jubbaland inaan xoreyno in maamulka iyo idinka maamulka ka sareeya adiga inaad isu tagtaan in sanduuq la furo sababtoo ah dadweynaha reer Jubbaland waxay joogaan 5 qaaradood ee adduunka ayay joogaan haddii la furo sanduuq la wada og yahay dad mas'uuliyiin ay mas'uul ka yihiin waxaan hubaa in la xoreyn karo sababtoo ah Somaliland iyo Puntland oo walaalaheen ahba dee ayagu hadda Amazon ma joogto haddii ay Amazon aan wax ka sugnaayay haddii aan Amazon wax ka sugnaayay waxa weeye waxaan u qaadanaysaa 20 sano iyo muddo aad u tiro badan baynu u qaadanaysaa dawladii hore ama madaxweynihii hore dalka Soomaaliya ayaa waxa oran jiray
biyo sacbadaada looga dhargaa adeer annaga haddaana isku tashanin dadkeena gudaha iyo dadkeena dibadda dalkeena ma xoreysan karno waxaan deganahay meel barwaaqo ah webiyada ay maraan mashaariicdii aad garanaysay ee faraha badnaa ee ugu horeeyay mashruucii maxaan ku idhahdaa kartoonka ee inkaas mashruucii bariiska ee Magambo mashruucii maxaan ku idhahdaa bariiska ee Faanoole biyo xireenkii Faanoole warshadii sokorta haddii la furo wax tahriib inay ka dhiman lahaa ma jirto ama dhalinyaro tahriib lahayd ma jirto waxaan hubaa in mashaariic haddii intaas oo mashaariic la sameeyo laakiin maxay ku xiran tahay mashaariicdaas nabad bay ku xiran tahay nabaduna waa mid laga shaqeyn karo haddii shalay riyadu ay ahayd markii hore Jubbaland sidee loo qabtaa ee maanta la qabtay waa in riyada kale ay noqotaa sidii Jubbaland dadkeeda isugu tashan lahaa dal iyo dibad loo xoreyn lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa waa rabay khudbada inaan intaa ka sii dheereeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa Jubbaland Soomaaliya oo dhan baa jecel mid dibadda jooga mid kasaba maxay u jecel yihiin waxay u jecel yihiin inay tahay dhul barwaaqo ah dhulka barwaaqo webiyada maraan dhir fara badan lahayd markay ugu dambeysay laakiin waxaan ka warqabaa oo la sheegay in la keenay mashiino geedaha lagu jaro 5 daqiiqo marka sidaad ogsoontihiin dhulkan carabta ee lamadegaanka ah adduunyada waa meesha ummadda ay ka bilaabatay sidaas oo kale ayuu dhir u lahaan jiray laakiin ka taxadar la'aan aqoon la'aan ayaa dhirta loo jaray marka waxaan ku talin lahaa jaal gudoomiye gobolka Jubbada Hoose adiga ayaa hadda gudoomiye ku ah inkastoo aad meel wada joogtaan dhamaantiin oo haddii maanta gobolka dhan uu xor yahay madaxweynaha gobolka dhan iyo dalka dhan uu mar lahaa gudoomiyaha degmadiisu haysan lahaa kan laakiin kulligiin meesha wada joogtaan hal meel taasna waxay suura gelinaysaa in maaragtay maamulku isdul fuula xataa oo maaragtay yani meel lagu kala maaragtay yani nin walba hawshiisa ay noqon weyso marka adiga gaar ahaan waxaan kula talin lahaa TV-yada isticmaala qoraalada isticmaala in dadka laga wacyigeliyo in dhirta aan la jarin xilliyada caadiga ah in dhirta la beero taas ayaan ayadana soo jeedin lahaa waa jeclaa inaan waxyaabo fara badan ku hadlo waa la soo eegayaa marka waxaad nagu salaamaysaa dhammaan dadkii howlahaasi u soo halgamay ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Maxamed Axmed Islaam maamulkiisa maxaan ku raahdaa baarlamaanka odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka dhammaantood salaan kal ilaabka soo go'day oo maxaan ku raahdaa sanjeega naga gaarsiiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wallahi ali ubax فلتفضل سايستيوت كوي ده كله بارن بعد ولا نشك check cool هي cool عبد الرشيد محمد عبد الرشيد علي كسو دواو سانتياغو واك سانتياغو دغنا adina may ku kooti Jubbada Hoose kiin ku mahadsigna aad iyo aad mana koy maantan koyti unu soditayti wali adi un koyti na kiin ku mahadsigna manin so jeediyaase wali nin shanti iyo wali dheegti iyo wahastan sanin jeediyaase Jubbada Hoose ku koytina aad iyo aad kiin faraantigna oo hadii baa unu soditayti aad iyo aad kiin ku mahadsigna dhulkayno bay mana mahilmaan karno mana Soomaaliya ku koyni mahilmaan karno waa dhankiyaale embe iyo moos iyo beerahayno iyo kulli kiyaalena Soomaaliya mahilmaan karo inkasta yaraynaysa ku bani ila mahilmaan karno haddi maykiin ku mahadsigna wali nin shanti ya wali kale ya kuma walakin kingu hadina ha waa
kuma hadsintahay walinin shanti ninjeedito ununa usan Diego gan hogne may kale kinku magaca kinku doorside uno nisiti ba bala nisiti mala da sukan barnaamij nisiti laakiin barnaamijka nisiti may ana afartan kas ana may ninka dhigto rabne bar siyeetanka dhigti bar afartanka dhigti hadi sideetankas adika dhigti may ninka dhigto rabte afartankas mayka uno kinku odsidoyne ina jinjinsa ninka dhigto marsadahad maywa bilaantina gadaal halan hirne bilaanti gadaal halan hidne maywa bilaantida iyona chaayo halsiyo fursasid halsiyo iyona bilaanta gabdhana furtasis halsiyo ina may rabne ina barlamaanki hore gabdhona ina ku waramoona barlamaanki hore ina ku waramoona rabne gabdho iyona meel halsaaro gabdho America hoogana meel halsaaro ina Soomaali ilaahay maslaha la kirido mana dhulkayno way mal dhaaf karo ha fiintan aan hirin yara way takaan xasuusto way Soomaaliya salaksheni mana dhulkayno mal dhaaf karo ha yaan badi soo qaad ay beram falano yaan badi soo qaad beram falano gulwadayaala daatiin beram falano gulwadayaala daatiin beram falano geerihi gurnaaye haddayno ermayay geerihi gurnaaye haddayno abba Ahmed wa Siad Abba Rashid Abba Rashid Hoyo Tobar Hoyo Tobar Hurnima ubane hoshi aan wada qabsano hurnima ubane hoshi aan wada qabsano saasa sinku bahi way Rashid soo dhawaw Santiago waat أيستي إذا ما صنت دوغا دوتي دول دتك ولا تراو ونونا كلكم سني دوغا ويران هذا نوع مقراف كوسل بين يا يوسف عدعاد أو أنا في الجبضة هوسا أو متقال فلانكي هذا عيارة يا وجدنا عدعاد كوسلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوسلوا جال رشيد سندياغو أنا وحنا كل شيء مقارنة كسماء يكون سجال بقول سجاشني كون سجال بقول سجاشني أفرت أيام وحنا كل شيء مقارنة كسماء وحنا كلنا هاي تودب جوري أيام كلنا هاي مقارنة كسماء وحاجوا ويل كيجا وحاجوا ولا له أنا متقنا كسماء وحا سنجوجو جوجو أما واحد جوجو هاي أما واحد جوجو ماله بجوجو أو ملاك وحا السودان ما شادي أجوت بدأ هذا كتاعي هذه أحمد مليوب يفرتك وسود ويننا آدي واحد قبضتنا واحد اللي بكرة معهن حبضي بعد الكوليكتين ضد كيبا متقنا هشي سيسن ضد كيبا هشي سيسن ضد كله هشي سيء ولا عليه اسمع عبا ما أنت وحوات كأسكوهاين نقول بر ما أنت وحكو جدا جبلان إن دفاعته ثقيل إلى كبير وحنكون شيء يا هبقين أو مدحويان يا جارسي أو برنامج يا جارسي oo shacabka naga gaarsiy oo ciidamada naga gaarsiy inaan diyaar u nahay shilinkaan hayna aan ku beerin yak idinka
كسو بلاو يونتوي كسو بلاو جمامو كسو بلاو جلب إلى متقنا وادو إلى هومبوي إلى متقنا بؤالة إلى متقنا حجر إلى متقنا أفمدو كل جود واه استنى من كأفكر دوبلا ما هستو ركواتهين قرب كينا العقب وأنسينا شقاية أو الدفاع وده كان واحد كسارة واحد بلايد كسارة بلايد أفكر دوما كسارة ديار بان إذن هاي ديار بان إذن هاي هابين يا مالن ديار بان إذن هاي لكن هدي لو كان كل شيء كسب بلاو أفمدو إلى متقنا باردر إلى متقنا جيب لول كي إذن هالدنيا كأفكر دوما جوجو واحد تهين مجرتو واحد تهين مرة وأنا متقنا ديار جروبان أو قفل يونغارن هل قفل يونغارن أنت صحور هاي كوا عروش كجرو وكل ما تقول هاي هذيك هاي سياسي يقول نورا بانكولي نورا عبد الرشيد نورا عبعيدو ما سيهي هدنا وحنسو كسو لوين يا مقع على اللي يرى رملة ساهيد كسو رملة welcome رملة adduunkana maxay ahayd waxaan ku arkaynaa struggle dhibaato soo maaha marka idinkiini da'da weynaa faraha ka qaada dhalinyarta gudoomiyaheena waxaan ku leenahay in waxbarashada aad iyo aad loo adkeeyo oo la invest gareeyo wax kasta maal weeye moogtahay meesha lacagtaada gelisid unbaa wax kaaga soo baxaya moogtahay lacagtaada haddaa gelisid hub iyo meel loo joogin meel evern baad soo taagnaanaysaa laakiin dhalinyartii haddaa faraha laga qaado oo wax la baro oo lagu invest gareeyo ayagiiba meel naga soo bixinayso insha Allah marka intaasan baa dhihi lahaa ku hadlaya magaca mataqaanaa Soomaali Bantu ama la yiraaho Maxamed Cali Ugaas Hanaan Hanaasi السلام عليكم ومحسنتين سومالي ما أنت سومالي أو سيدان سوق دوان وإلهي محدث واتي أن هبين إمال أن كفر ديني إنه إلهي نأبريين ما دام أن قدوميها عبد الرشيد علي قاد يقول أن عاب اسكو نمت وحن لنا هي جبلاندي هاي أمودنا ما أنت كله إن أنا قاعد دورانينه هذا يكتهي هربان ودوراني ومقدر الصومالي ده المرهور وديبنا نفتين بان وديبنا واحد عادي يعني مركي انقلاب كول عاي إن الملء عدل نوجو تكان وأمتي يدلكي يعيدي يوحيل الإسراق يكسمه هذا أدب أدوسو نقطين أدربتين إن يعني تدكي أدوسو أرورسان وإذن كو تاجر سنة هنا أقارننا إذن تاجر سنة لكن وحن دونينا نبض وحن دونينا عدالة وحن دونينا سنان مدن وحكى لبانسيد هنا لك وحواي أنت سنكوكو سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما جالي يدا رجب الله وسلامية. سلامة مسلم كأي أكو سلامية. وحنا لك كسر ويننا عبد الرشيد علي جون دبيها جبضة هوسة أو قربي فديو رنتي ميابلس نوع كسر ويي أو وكان قبل حلفدي ميابلس aad baan u soo dhaweynaynaa annagoo jaaliyadii San Diego runtii waxyaalo badan bay qabteen aniga magacayga Danikaas baa inii sheegay waxaan u qabtay meesha saddex aniga geel la dhahaa absuuri sheegay Maxamuud Ugaas Xuseen Ugaas Buqow waa 4 generation weeyaan marka runtii waa arrin dheer أنا واحد كل شيء على اللي قولي أقول شيء إلا هذا وأستر كل شيء ماشي مركا رنتي يعني كقاب إنه ما هالمشاس وكسر دوين يا قدوميها وحنوشي جالية رجال جبلان
runtii nimankaas u dhabar adeegay howshaas oo wax ka qabtay in la garab istaago oo lagu caawiyo waayo qofka dee adiga haddaad joogtay qurbo qofkii meeshii adiga wax ka qaban lahayd wax ka qabtay mahadnaq iyo wuxuu u baahan yahay caawin gabdhahayni hadda see ka hadleen baad arkayseen Jubbaland waxay ka run sheegtay runtii waxay ka run sheegtay dhismaha Soomaaliya intii hadda ay socotay dhibaatooyin badan bay la kulantay way ka gudubtay alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican bay maraysaa taas waxaan ku horta aan ku baraarujinayaa jaaliyadda reer Jubbaland inay fadhiga ka kacaan dhulkana ay wax dadkaas ku caawiyaan midda labaad waxaan la dadaarmayaa gudoomiyaha runtii waad u dhabar adeegteen howshan wax badanna waad geliseen maadaama aad wax badan geliseen waxaa loo baahan yahay inaadan ka fariisanin hore u sii wadin annagana waan ugu taageersannahay aniga aabbahay shirkii ugu horreeyey oo ka dhacay Kismaayo raggii ninkii furay buu ahay maxamed xuseen baqow haddana wuxuu u taagan yahay waa Nairobi Kismaayo wuxuu joogaa Nairobi laakiin markaan la hadlo wuxuu dhahaa meeshii Jubbaland heed Kismaayo maxaa ka socdo marka runtii waa farxad weeyaan in aan arintaas aan wax ka qabano gudoomiye waa ku salaamayaa waa ku soo dhaweynaynaa jaaliyadda Jubbaland oo San Diego California gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa waa salaaman tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaaskii uu mahadsan yahay ma aragtay ilaan waa ugaaska kaliya ee magaalada nala jooga kuna dhashay mataqaanaa meeshu asaga calanley xaafadda uu ku abtirsanayo waad garanaysaan anigu dee ilmaadeeradiis baan iskoola dhigan jiray asaga waa ka yara weynahay aan saaxiibo la ahaa maxamed xasan yaan la dhigan jiray marka dee waa nin dhabtii Kismaayo ku abtirsado waayo maaragtay ka uu ku abtirsado haddana waxaan u malaynayaa gabdhaha ay soo fiirna waxay leeyihiin maxaa dhaantadii ku dhacay haddana hees dhaantaan saaraynaa marka falyatafadal ku soo dhawow dhaantada ku soo dhawaada
وعيد هدنك عقاق خيرات عيدنا كوبين عيدنا كوبين عقاق خيرات عيدنا كوبين عيدنا كوبين عليسي نبضي أضعانك كو أخير كعب عيبي أي مريم صو عليسي نبضي أضعانك كو أخير شعب عيبي أي مريم بساعرك وفدك تكو عنتهي وعلنك وينا وحدود هيني واكي نعيل تري واكي نعيل تري بساعرك وفدك تكو عنتهي وعلنك وينا